أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن السلام يا رحمتي وحمدك السلام يا صلاة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعدين نوعا ما تلقون قبل من عشكي كواد محيطي برشاد اللغة الإنجليزية hore waxaynu balankeenu ahaa inaynu xisadii aynu bilowno insha allah markaa jaaniskoo yaraada awgeed ayaan maxay wax badan aynoo suurtagelin laakiin maanta waxaynu bilaabaynaa cashkii koowaad ee barasho wanaag maxay luqadda ingiliishka ee la socod wanaagsan lesson cashka koowaad weeye okay English alphabet ayaynu ka hadli doonaa types of English alphabet ayaynu ka hadli doonaa English types of English alphabet waxaa loo qaybiyaa capital letters small letters iyo consonant letters iyo waxaa loo yaqaano vowel letters intaas waa inta types of English alphabet ka loo qaybiyo English alphabet waxaa loo qaybiyaa capital letters oo xarfo waaweyn small letters oo xarfo yaryar consonant letter oo xarfo shibanayaal qura ah iyo vowel letters oo maxay tahay shaqaladii oo kaliya ah okay marka hadhow tali markaan ku idhaahdo English inta loo qaybiyaa waxaad ku jawaabi doontaa afartan loo qaybiyaa hadda ku dhaafto maxay kala yihiin waxaad ku jawaabi doontaa waa capital letters small letters consonant letters iyo vowel letters okay capital letters macnaheedu waxa weeye xarfaha waaweyn maxay yihiin markaa waa 26 xaraf bay ilaa iyo z ayay ka bilaabmayaan a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z intaas waa capital letters xarafka suu qoran yahay fiirso kuwa kale wuxuu kaga duwan yahay fiirso suu qoran yahay macnaha waa capital xaraf weyn weeye oo dhammaantood ay ku qoran yihiin xarfo waaweyn ay ku qoran yihiin okay small letters kuna waa xarfo yaryar weeye xarfaha yaryar kuwa kale maxay kaga duwan yihiin iyaguna waa xarafku isbedelay akhrintu waa sidii waana 26 xaraf weeye sidoo kale iyaguna waa a u b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z iyaguna waxaa la yidhahdaa small letters waa xarfo yaryar weeye okay waxaa ku sii xiga consonants waa shibanayaalka weeye shibanayaalku markaa waxaa laga saarayaa intii shaqalka ahayd baa laga saarayaa intii shaqalka ahayd ayaa laga saarayaa marka waxa weeye waa consonant letters oo iyaga la yidhaahdaa oo maxaa ka mid ah b c d f g a-dii waa ka maqan tahay oo e-dii waa ka maqan tahay oo i-dii waa ka maqan tahay o-dii waa ka maqan tahay oo u-dii waa ka maqan tahay oo shantaasaa laga saaray waa 22 xaraf weeye marka waa maxay tahay waa b bay ka bilaabaysaa c waa ku xigta d waa ku xigta f g h j k l m n p q r s t v w x y z okay waxaa kusii xigtaa capital and small letters together waxa weeyaan waa waaweyn iyo yaryar wada socda wayna haddana sheegi doonaa marka waxaan isku daraynahay xarafkii yar iyo xarafkii weynaa kii labada qayboodan sheegnay small letterskii iyo capital letterskii laba xaraf ayaynu isku darnay oo halkaa idinka muuqata waxaan isku darnay eedii iyo eedii weynadii eedii yarayd bdii weynadii bdii yarayd cdii weynadii cdii yarayd ddii weynadii ddii yarayd edii weynadii edii yarayd fdii weynadii fdii yarayd saasaan isku hojinay marka waa 26 xaraf oo tugada iyagoo wada socdaan alright halkaasaynu ku joojinayna xiisada maanta waxaa kusii xigaya oo aan kaa raba adiga a to z oo capital letters inaad qorto sidoo kale inaad qorto maxay tahay iyadoo xaraf yara inaad qorto kuwa complete garayso oo dhamaystirto ayaa laga doonayaa xiisadeena maanta halkaas ayaynu kusoo gabagabayn doonaa insha allah leeligaana kasoo shaqeeya wabilaahi tawfiiq intaynu xiisadan xigta dib isugu soo noqon doono dhammaantiin khayr ayaan idiin rajeynayaa waxaan idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum